Lauren McCluskey waxay ahayd gabar ardayad ah oo aad iyo aad u qurux badan, caqligeeduna uu aad iyo aad u sareeyo. xirfadeeduna waxay ahayd orodka iyo kabooditaanka meelaha aad iyo aad u sareeya, taasoo sababtay gabadhan oo da'deedu yar tahay inay ku guuleysato bilado aad iyo aad u fara badan. nolosheedu markii hore waxay ahayd mid aad iyo aad u qurux badan ilaa iyo markii ay ogolaatay inay aqbasho sidoo kalena soo dhaweyso arrimaha jacaylka, taasoo keentay habeenada kamid ah inay isbartaan ninkan oo magaciisa la yiraahdo Malvin Rowland, kaasoo markii dambe nolosheeda u bedelay dhanka murugada, walbahaarka iyo sidoo kale stress-ka, ilaa markii dambe uu ku xujeeyo haddii ay lacag u soo diri weydo in uu sawiradeeda oo qaawan baraha bulshada ku soo deyn doono, taasoo ku sababi doonto in ay kasbato ceeb iyo falxumo, ilaa markii dambe ay arrimuhu isku bedeli doonaan qaabkii ay wada taqaaneen oo ah in ay arrintaasi dhacdo. haddaba sheekada oo dhammaystiran muuqaalka ayaan ku ogaan doonaa, ee nala joog ilaa iyo dhammaadka muuqaalka. magacaygu waa Saki Cabdi Yaasiin, kusoo dhawow channelka Binu Saki Baro. fadlan muuqaalka noo like gareeya, sidoo kalena fiidiyowga noo share gareeya. haddaba inta aanan muuqaalka u gelin, marka koowaad aan u ducayno walaalaheena reer Falastiin ee dhibaataysan, cadowgana uu dhulkoodii haysto, in Ilaahay uu dhibaatadaas ka dulqaado. sheekadeena maantay waxay ku saabsan tahay gabadhan oo ay ku dhacday dhacdo runtii aad iyo aad u falxun. dhacdadan waxay ka dhacday waddanka Mareykanka, qaasatan gobolka Utah. gabadhan magaceeda waxaa la yiraahdaa Lauren McCluskey. waxay dhalatay sanadu markay ahayd 1997. waxay ku dhalatay magaalo la yiraahdo Berkeley oo ka tirsan gobolka California ee waddanka Mareykanka. Lauren markii da'deedu ay yarayd ayay faamilkeedu ka soo guureen gobolka California, waxayna soo degeen magaalo la yiraahdo Pullman oo ka tirsan gobolka Washington. halkaas ayay ka bilowday waxbarashadeedii dugsiga dhexe. waalidiinteedu waxay ahaayeen dad waxbartay oo professors ah. haddaba gabadhan markii la geeyay dugsiga dhexe waxay la soo baxday hibo kale oo aysan dadku ku ogeyn. hibadaas waxay ahayd gabadhan waxay jeclayd in ay ka qayb gasho tartamada Olombikada oo lagu soo bandhigo ciyaaro kala duwan sida orodka iyo kabooditaanka meelaha joogoodu uu aad iyo aad u sareeyo. haddaba Lauren ayadoo da'deedu ay yar tahay ayay la soo baxday xirfadan qaaliga ah, waxaana dhacday in ay ka qayb gasho tartamo Olombika ah oo lagu soo bandhigay gobolkan ay markaas deganaayeen ee Washington. waxayna kasbatay bilado aan xisaab lahayn. markii ay biladahaas kasbatay sidoo kalena ay noqotay gabar caan ka ah gobolka Washington, ayaa waxaa dhacday in ay hesho waxbarasho free ah, weliba heer jaamacadeed. waxayna ka heshay deeqdaas waxbarasho jaamacad la yiraahdo Utah University oo ku taala gobolka Utah ee waddanka Mareykanka. markii ay iskoolka dhamaysay ayay waxay bilowday inay u soo ambabaxdo jaamacadaas iyo weliba gobolka Utah, qaasatan magaalada Salt Lake City. waalidiinteedu markaas waxay deganaayeen gobolka Washington. haddaba markaas ayay waxay soo macsalaamaysay labadeeda waalid, waxayna soo aaday gabadhan inay sii wadato safarkeeda waxbarashada. waxay timaaday jaamacaddii ugu deeqday scholarship-ka, kadibna waxaa la siiyey qol ayada u gaara oo ku yaala jaamacadda gudaheeda. haddaba gabadhani halkaas kuma aysan deynin xirfadeedii orodka. ayadoo jaamacadda dhiganaysa ayay haddana ka qayb geli jirtay tartamada orodka ee lagu soo bandhigo gobolkan Utah. nolosheedu waxay ahayd mid aad iyo aad u qurux badan waqti xaadirkaas. haddaba waxaa dhacday habeenada kamid ah, taariikhdu markay ahayd bishii September 2018. gabadhan Lauren iyo dhowr kamid ah asxaabteeda ay jaamacadda isla dhigan jireen ayaa waxay aadeen baararka lagu caweeyo fiidkii mid kamid ah. haddaba markii ay tageen baarkaas ayada iyo asxaabteeda waxaa dhacday saacado kadib in ay isbartaan ninkan aad muuqaalka uga jeedaan. gabadhan ayaa ninkan structure-kiisa iyo qaab ahaantiisa aad iyo aad ula dhacday, sidoo kalena asaguna wuxuu u sheegay in uu ka helay ayada. haddaba meesha waxaa ka dhacday in ay lambarada ku kala qortaan ayada iyo ninkan. markaas wuxuu u sheegay gabadhan in magaciisa la yiraahdo Sean Fields, sidoo kalena da'diisu ay tahay
28 sano. sidoo kale wuxuu u sheegay in uu baarkan ka shaqeeyo, weliba uu uga shaqeeyo qaab security ahaan ama dadka baarka ilaalada ka ah. haddaba markii ay halkaas isku barteen, gabadhan iyo asxaabteeda waxay ka soo baxeen baarkii, kadibna waxay ku soo laabteen jaamacadooda. asxaabteeda ayaa waxay u sheegtay in ay ninkan aad iyo aad uga heshay, sidoo kalena uu yahay ninkii ay ku soo dhaweyn lahayd nolosheeda. xitaa waxay la wadaagtay hooyadeeda, waxayna u sheegtay in ay isbarteen nin runtii aad iyo aad u soo dhaweeyey, ayaduna ay ka heshay. kadib waxaa dhacday in labadooda xiriirkooda uu sidaas ku bilowdo. dhowr maalmood ayay wada socdeen, sidoo kale waxay isla qaadan jireen waqti aad iyo aad u fara badan. haddaba waxaa dhacday markii ay isla socdeen dhowr asbuuc in ninkani uu la soo baxo weji kale. wejigaas wuxuu noqday in uu gabadhan cadaadis aad iyo aad u fara badan saaro, weliba kontarool aan macquul ahayn oo qofka bini'aadanka ah uusan marnaba u dulqaadan karin. gabadhan ayuu wuxuu ku cadaadin jiray in ay iskaga harto asxaabteeda ay jaamacadda isla dhigtaan, sidoo kalena waqtiga ugu badan ay asaga isla qaataan. haddii ay asxaabteeda raacaysana ay qaadato baskoolad, maadaama aysan garanayn waxa ay noqon karaan asxaabteeda. wuxuu bilaabay inuu ku bogaadiyo inay qaadato baskoolad, mar walbana ay feejignaato. sidoo kale marka ay asxaabteeda raacdo, taleefanka ayuu aad iyo aad uga soo wixi jiray, asagoo weydiinaya meesha ay joogto, cidda ay la socoto, iyo weliba inta saacadood oo ay meeshaas ku maqnaanayso. taasina waxay noqotay gabadhan mid kadeed ku ah, waxayna asxaabteeda la wadaagtay in ninkan ay isbarteen uu bareshar aad iyo aad u fara badan saarayo. kadibna asxaabteeda waxay kula taliyeen in ay xiriirka u jarto ninkan. sidoo kale waxay la tashatay hooyadeeda, waxayna u sheegtay in ninkii ay isbarteen uu dhibaatadan ula yimaaday. haddaba inta aysan xiriirka u jarin ayaa waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mid ah ay ninkan ka xado aydhikaarkiisa, kadibna ay sawir ka qaadato. markii ay sawirkaas ka qaadatay ayay waxay bilowday in ay google-ka ka baarto ninkan qofka uu yahay. haddaba markaas ayaa waxa u soo baxday gabadhan arrin aysan marnaba filanaynin. markii ay google-ka ku baartay ninkan, waxaa u soo baxay ninkan magaciisa in uusan ahayn marka koowaad Shawn Fields, magaciisa saxda ahna uu yahay Malvin Rowland. sidoo kale da'diisu aysan ahayn 28 sano oo da'diisu ay tahay 38 sano. sidoo kale waxaa u soo baxday in ninkani uu yahay dambiile hadda ka hor xabsiga soo maray, waxaana ugu qoran liiskiisa in uu yahay sexual offender ama dadka ka ganacsada arrimaha galmada. waxayna aragtay ninkan inuu ahaa nin hadda ka hor gabdho badan fara xumeeyey, sidaasna lagu xiray sanadii 2004. 9 sano oo xabsiyana uu soo qaatay. sanadii 2013dana lagu soo daayay sii dayn sharafeed. sidaas daraaddeedna uuba hadda bannaanka ku joogo sii dayn sharafeed oo dowladdu ay soo daysay 2013. markaas ayaa gabadhan waagu ku bariyey, waxayna aragtay inay qaadatay go'aan qaldan oo mustaqbalkeeda ah. haddaba markii ay ogaatay Lauren in ninkani uu yahay ninka dambiilaha noocaasa, ayay waxay bilowday in ay bataatanba xiriirka u jarto. markaas ayay waxay u sheegtay in aysan doonayn in ay la sii socoto. haddaba ninkan markii horeba kursi gaaban ayuu ugu fadhiyey, markaas ayuu wuxuu bilaabay in uu gabadhan dhibaateeyo. xilligaas wuxuu ka haystay baabuurkeeda, maalin ka hor ayuuna ka qaatay, kadibna wuxuu u sheegay in uusan u soo celinayn baabuurkeeda. haddaba gabadhan ayaa markaas waxay la xiriirtay hooyadeed, waxayna u sheegtay ninkii ay la socotay in ay xiriirka u jartay, sidaas daraaddeedna uu baabuurkeedii xoog uga haysto. hooyadeed ayaa waxay soo wacday saldhigga booliska ee ku yaala magaaladan Salt Lake City, waxayna u sheegtay in gabadheeda ay dhibaatadaas haysato. sidoo kalena ay gabadheedu xiriir la lahayd nin sexual offender ah, ninkaas oo hadda dhibaato ku hayo kadib markii ay xiriirka u jartay. taleefankii ay kula hadlaysay saldhigga booliska hooyadeeda, hadalkeedu sidaan ayuu ahaa. Hi, I would like to request some help from my daughter, who's a student at University of Utah, and she started dating this guy there who's like a bad person. Okay. And she found out he's a bad person, and she broke up with him, and he has her car. Yep. He was lying to her, Okay. and he's actually a sexual offender.
I don't want her to go there by herself and have like something bad happen to her. haddaba booliskii markay u sheegtay ninkan ayaa laga soo qaaday dhowr maalmood ka bacdi baabuurkii kadibna gabadhan ayaa baabuurkeedii loo soo celiyay markaas ayuu haddana wuxuu ku bilaabay in uu gabadhan hanjabaado u soo diro waliba hanjabaado uu rabo in uu lacag uga qaato taleefano kala duwan ayaa fariimo looga soo diray gabadhan ayadoo loo sheegayo in la haayo sawiradeeda oo qaawan haddii ay lacag $1,000 maalin walba soo diri weydana in sawiradeeda social media lagu soo baahinayo sida aad wax badan ba aragteen baraha bulshada Soomaalida dhibaatooyinka lagu haayo gabdhaheena inta badan haddaba dadka fariimahaas u soo dirayo gabadhan waa ninkan saaxiibadiisa asaga ayaana ku soo bushgareeyay haddaba maalin maalmaha kamid ah ay waxay u soo direen sawir ayada oo qaawan sawirkaasna waxaa ka qaaday ninkan markii ay xiriirka la lahayd haddaba waxaad garanaysiin dadkan reer galbeedka ah markii ay xiriir leeyihiin inay u dhaqmaan sidii nin iyo naag isqabo oo kale taasina ay keentay in gabadhan laga qaado sawirka noocaana markii ay asaga la hadashayna wuxuu u sheegay in taleefankiisa laga jabsaday taasina ay keentay in sawiradaas laga qaatay lacagtaasna ay iska bixiso haddaba gabadhan ayaa dhowr mar lacag sidaas looga qaaday markii dambe way macaanaatay halkan ayay sheekadu ka bilaabanaysaa gabadhan ayaa waxay u tagtay booliska maamula jaamacadda ay dhiganayso waxayna u sheegtay in ay dhibaato kala kulmayso iyo waliba cagajuglayn nin ay saaxiibo horay u ahaayeen balse hadda ay kala tageen oo aysan xiriir lahayn booliska ayaa waxay u sheegtay in ninkaas ay ka caawiyaan sidii ay uga qaban lahaayeen haddaba booliskii jaamacadda arrintaas waxba kama aysan qabanin gabadhanna hanjabaadii ninkan weli wuu ku sii wadaa waxaa dhacday in habeenada ka mid ah uu ugu soo galay gabadhan qolkii ay ka degneed jaamacadda asagoo rabay inuu ka dhaadhiciyo dadka hanjabaadda u soo diraya in uusan asagu ka mid ahayn balse gabadhani markii horeba way ogaatay in ninkani uu ka dambeeyay sawiradaas in ay dad kale gacanta u galaan waxayna ka diiday wax walba oo uu damcay inuu kala hadlo habeenkaasna bannaanka ayay iskaga saartay ninkan ayaa markaas wuxuu sii bilaabay inuu u soo diro sawiradeeda oo qaawan qaar ka mid ah kadibna uu u sheego in uu rabo in uu social media ku baafiyo haddii aysan lacagtaas bixinin haddaba waxaa dhacday maalintaas maalintii ku xigtay sida aad muuqaalka uga jeedaanba gabadhan iyo gabar kale oo saaxiibteeda ayaa isa soo raacay waxayna yimaadeen xarunta booliska ee jaamacadda waxay la kulmeen xilligaas sarkaal magaciisa la yiraahdo Michael Desaz sarkaalkaas gabadhan waxay u sheegtay in ay caqabado badan kala kulmayso ninkii boyfriendkeeda ahaa sidoo kale sarkaalkaas waxay tustay sawiraanta uu ninkan u soo diray oo qaawan sawiraantaas oo ayadu ay leedahay waxayna u sheegtay sarkaalkaas ninkan inuu ugu hanjabayo haddii ay lacag u soo diri weydo inuu sawiraantaas baraha bulshada ku baafinayo sidoo kalena markaan ay nafteeda uga cabsanayso oo ay ka baqayso in ninkani uu dilo oo ay nafteeda uga cabsanayso haddaba sarkaalkan ayaa gabadhan wuxuu ka dhaadhiciyay in waxaani ay yihiin dad iskaamarisa oo raba in ay lacag beenbeen uga cunaan sidoo kalena aysan ka walwalin in ay dhibaato soo gaarto oo ay iska aado qolkeeda ay jaamacadda ka degan tahay wax dhibaato ana aysan la kulmaynin bal adigu arrintaas ka sheekay gabadhan ninkan waxay tustay sawiraanta sidoo kale waxay tustay fariimaha uu ninka u soo dirayo sawirkiisa ayay tustay haddana sidaas ayuu u sheegay waxaa dhacday gabadhan oo niyad jabsan inay iskaga soo dhaqaaqdo goobtaas haddaba ninkii odayga ahaa wuxuu maqlay in gabadhan ay rabto inay booliska ku dacweyso mar kale ayuu fariin u soo diray wuxuuna u sheegay haddii ay mar kale isku daydo in ay booliska ku dacweyso in uu qolkeeda ugu imaanayo kadibna uu si fool xun halkaas ugu dilayo gabadhan ayaa waxay noqotay mid cabsi iyo cagajuglayn daris la noqotay waxbarashadeedii iyo tartamadii ay ka qaybgali jirtay dhammaantood waxay ka galeen gaab aad iyo aad u weyn ardaydii ay saaxiibada ahaayeen ayaa dareemay in gabadhan uu dib u dhac ku dhacay haddaba waxaa dhacday gabadhan in ay mar kale la xiriirto saldhigga booliska ee magaalada Salt Lake City waxayna u sheegtay in ay kala kulmayso cadaadis iyo cagajuglayn nin ay saaxiibo horay u ahaayeen markii hore gabadhan waxay la xiriirisay ciidanka booliska ee jaamacadda markaan waxay u gudubtay ciidanka booliska ee magaalada iyo gobolkaba waxayna u bandhigatay cabashadeeda haddaba ayaguna waxay u sheegeen
in ay aado ciidanka booliska ee jaamacadeeda dib ayaana loo soo celiyay gabadhan mar kale. I've been blackmailed for money. Let me go ahead and get you over. University of Police will probably take the case then. Just one sec. I've talked to them already, but Okay. I just wanted to call you as well. Usually we just take it where you live, and then that agency does a case. Yeah, I was just concerned because I wasn't sure how long they were going to take. Okay, let me get you up to them so I can see what's going on with it. Just one moment. waxaa la sheegaa gabadhan in ay dacwad ka gudbisay ninkan tiro gaaraysa 20 mar. weliba waxay la xiriireysay inta badan ciidanka booliska ee jaamacadeeda iyo ciidanka booliska ee magaalada, balse arinteeda cidina waxba kama qaban. kiiskaana waxaa lagu magacaabaa kiiskii booliska maadaama boolisku uusan waxba ka qaban arinta gabadhan. haddaba waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah ninkan la yiraahdo Malvin Rowland in uu soo labistay sida qaabka Superman oo kale sida aad muuqaalka uga jeedaan, kadibna muddo dhowr saacadood uu taagnaa albaabka qolka ay ka degan tahay gabadhan jaamacadda. xilligaasna waxaa la sheegaa in uu sugayay gabadhan in ay banaanka u soo baxdo, wuxuuna rabay in uu maalintaas ka taqaluso. gacanta wuxuu ku sitay boorso iyo weliba qori dhabarka u saaran, wuxuuna u muuqday nin dagaal military ah u socdo. haddaba maalintaas gabadhan banaanka uma aysan soo bixin, sidaas ayayna ku badbaaday. waxaa dhacday maalin kale kaamirooyinku waxay soo qabteen ninkan Malvin oo gurigiisa ka soo baxayo saacadu markay ahayd 6 subaxnimo. maalintaasna taariikhdu waxay ahayd 22 bishii Oktoobar 2018. kadibna wuxuu soo qaatay baabuur cad oo uu soo kireystay. baabuurkaas ayuu wuxuu ku soo baakintay baarkinka ay jaamacaddu leedahay. xilligaas waxay ahayd 9 subaxnimo. muuqaalka waxaad uga jeedaan gabadhan xilligaas ayay ka baxday qolkeeda, waxayna maalintaas la lahayd ballan ninkan sarkaalka ah, waxayna rabtay inay mar kale ka cabato dhibaatada uu ku hayo saaxiibkeedii hore. ninkii sarkaalka ah markii ay la kulantay gabadhan sida aad muuqaalka uga jeedaan ayaa ku soo laabatay qolkeedii. kadibna goobtii ay markaas ka dhaqaaqday ee xarunta gudaha jaamacadda waxaa soo galay Malvin oo raadinaya markaas ayada, balse ma uusan helin maadaama uu qolkeeda ka soo waayay. waxaad u jeedaan inuu gacanta ku sito boorsadii uu sitay maalintii hore, waxaana la rumaysan yahay boorsadaas inuu ku watay bastoolad. haddaba gabadhii markii uu waayay dhowr saacadood kadib ayuu iskaga tagay goobta. haddana wuxuu soo laabtay fiidkii. xilligaas saacadu waxay ahayd 9:58 daqiiqo. taariikhduna waxay ahayd 22 Oktoobar 2018. markaas qolkeeda ayay ku sugnayd gabadhan Lauren, waxayna la hadlaysay hooyadeeda. markaasna waxay kala hadlaysay dhibaatada uu ku hayo ninkii ay saaxiibada ahaayeen, waxayna hooyadeed u sheegaysay in ay cabsi darteeda waxbarashadii oo dhan ay gaab ka gashay. haddaba ninkan ayaa qolkeeda u soo galay xilligaas. hooyadeed oo taleefanka kula hadlaysa ayaa waxay maqashay no, yacni qof diidaya in dhibaato lagu sameeyo. kadibna waxay maqashay gabadhan taleefankeeda oo dhulkii ku dhacay, sharqantii oo dhanna ay istaagtay. xilligaas guriga markii uu soo galay banaanka ayuu ula baxay gabadhan, kadibna baakinka jaamacadda ayuu geeyay. halkaas ayuuna ku toogtay gabadhan yar ee maskiinta ah ee magaceeda la yiraahdo Lauren. kadibna goobta ayuu iskaga baxsaday. haddaba maadaama hooyadeed ay taleefanka kula hadlaysay, sidoo kalena ay aragtay in gabadheedii ay khatar soo wajahday, isla markiiba aabaheed ayay u sheegtay. haddaba sida aad codka ka maqli doontaanba aabaheed ayaa soo wacay booliska, wuxuuna u sheegay in gabadhiisii ay dhibaato ku dhacday. Hi, my daughter Lauren McCluskey was talking to her mom, and then she just started saying no, and it sounded like someone might have been grabbing her or something. All units, attempt to locate a suspect involved in possible kidnapping. The victim is Lauren McCluskey. Her mother heard her yell no on the phone. Then the line went quiet. haddaba booliskii ayuu siiyey ciwaankii jaamacadda iyo weliba qolkii ay ka deganeed. booliskii oo ordaya ayaa yimaaday jaamacaddii, qolkeedii ayaa laga waayay. kadibna waxaa laga baaray baakinkii jaamacadda. baabuurkeeda qaybtiisa dambe ayuu ku riday markii uu dilay meydkeeda. haddaba xilligan boolisku waxay noqdeen kuwa ka soo daahay in ay badbaadiyaan gabadhan.
dhowr iyo 20 jeer oo hadda ka hor ayay ka caabatay ninkan in uu rabo inuu dilo booliskana ay u soo gudbisay warbixintiisa balse aysan waxba ka qabanin hadeertaana waa xilli ay wax walba dhamaadeen haddaba booliskii xilligaas ayay bilaabeen in ay ninkan raadiyaan kaamirooyinka wadada ayaa soo qabatay ninkan markii uu dilay gabadhan kadib in uu aaday meel lagu sugo baabuurta waxaana u jeedaan ninkan oo telefoon ku hadlaayo markaasna baabuur ayuu dalbaday baabuurkii ayaa u yimaaday baabuurkaas waxaa waday haweeney uu markaas ayadana xiriir la lahaa sidoo kalena uu rabay in uu dabinkiisa ku soo rido haddaba baabuurkaas ayaa goobta ka qaaday booliskii baaritaano ayay ku sii bilaabeen ugu dambeyn waxay heleen in uu ku sugan yahay guri ka mid ah magaalada gurigii ayay tageen kadibna gurigii ayay gudaha ugu daateen haddaba ninkan markuu arkay in boolisku ay soo galeen guriga gudihiisa ayuu bilaabay in uu qol ka mid ah guriga isku soo xiro balse wuxuu ogaaday in boolisku ay soo jabin karaan qolka kadibna ay gudaha u soo galayaan sidaasna ay ku qabanayaan dhowr daqiiqo ka bacdi booliskii markii ay soo galeen guriga waxay maqleen xabad ka dhex dhacday qolka gudihiisa kadibna qolkii ayaa la jabiyey waxayna arkeen ninkan oo meyd ah oo asagu naftiisa toogtay sidaas ayuuna isku dilay intii la qaban lahaa haddaba dhacdadan ayaa waxay noqotay mid social mediaha gobolkaas oo dhan qabsatay sidoo kalena booliska lagu dhaleeceeyo sida ay uga gaabiyeen gabadhaas yar ee maskiinta ah oo intaasoo maalmood dacwad ka soo gudbinaysay ninkan sidoo kale booliska waxaa lagu dhaleeceeyay in ninkani uu ahaa nin horay dambiye u galay haddii gabadhaas sawirada ay u soo diraysay sawir ka mid ah ay Google-ka gelin lahaayeen si fudud ayay u ogaan lahaayeen in ninkani uu yahay mid horay dambi u soo galay sidoo kalena xilligaas sii dayn sharafeed banaanka ku jooga isla markiiba waxaa fududaan lahayd in la soo qabto sidoo kalena laga hortago in uu dilo gabadhaas yar ee ardayada ah balse boolisku arintaas waxba kama aysan qabanin haddaba faamilkeedii ayaa yimaaday gobolkan qaasatan hooyadeed iyo aabaheed waxayna dacwad ka gudbiyeen booliskii jaamacadda iyo waliba booliskii magaalada dacwad waliba maxkamad sare ah waxayna banaanka soo dhigeen codadkii ay gabadhan yar kula hadli jirtay booliska markii ay ka cabanaysay ninkan waxaa dhacday maxkamaddii in ay jaamacaddaas ku xukunto lacag magdhow ah oo gaaraysa $100,000 sidoo kale askartii ay gabadhan yar dacwada u gudbin jirtay ayaa dhammaantood xilka laga qaaday sidaas ayay shaqadooda ku waayeen haddaba kiiskan wuxuu ahaa mid aad iyo aad caan uga ah gobolka Utah iyo waliba guud ahaan waddanka Mareykanka waxaana lagu magacaabaa kiiskii booliska ee Lauren McCluskey haddaba halkaas ayaan ku soo afjaraynaa muuqaalkan su'aasha aan ku weydiinayo ayaa waxay tahay adiga daawanaya muuqaalkan maxay ahayd sababta kaliya oo ay ku badbaadi kartay gabadhaas sidoo kale boolisku ma wuxuu ahaa mid saxan mise mid qaldan sidii uu kiiskan ula dhaqmay qaybta hoose noogu soo qor faalladaada sidoo kale ha ka iloobin inaad muuqaalka like garayso fiidiyoogana aad sii share garaysaan si uu dad badan u gaaro inta aan ku kulmayno muuqaalka xiga waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin oo idin leh aragti dambe oo xiiso leh ciao